kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena falaqaynta wararka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona kulanka bari la filayo inuu ka dhaco golaha shacabka Soomaaliya iyo xogihii ugu dambeeyay aad ku maqli doontaan maxay ka wada hadleen madaxweynaha madaxweynaha dhammaadey ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo waliba madaxweyne Qoorqoor kulankii xalay dhex maray wararkii ugu dambeeyay aad maqli doontaan xildhibaan Mahad Salaadna wuxuu la wareegay deeq kaga timi Wariye Daahir Calasow oo ciidamada ka soo horjeeda muddo lagu talagalay iyo waliba madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan oo xariga ka jaray warshada hubka ugu casrisan dalka Turkiga qodobada iyo qodobo kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeena falanqaynta wararka ku soo dhawaada warkii oo fidsan aanu ku bilaabanay kulanka bari la filayo inuu ka dhaco baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa la sheegayaa in halkaas bari la filayo in kulan uu madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaas uu kulan kula yeesho baarlamaanka Soomaaliya kulankan ayaa waxaa ka soo baxaya warar kala duwan oo wararka qaar ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya uu bari ka codsan doono baarlamaanka Soomaaliya inuu ka laabtay muddo kororsigii kulankan ayaa waxaaba hore u soo qorsheeyay baa leeyahay madaxweynaha madaxweynaha ku dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Mursan Sheekh Cabdiraxmaan wararka ayaa waxa ay sheegayaan in shaxdan ay wada dhigteen madaxweyne Farmaajo iyo gudoomiyaha baarlamaanka kaasoo la sheegayo in bari markii madaxweynuhu uu baarlamaanka kulanka jeediyay inay gacanta u tagaan wararka qaar ayaa sheegaya in xildhibaano ka soo horjeeda in laga laabto labadii sane ee muddo kororsiga ahayd ay bari buuq sameyn doonaan wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ay tan tahay baa leeyahay ismiidaamin siyaasadeed marka loo eego in baarlamaanka Soomaaliya haddii bari ay diidaan inay uu dalku gali doono baa leeyahay qalaas siyaasadeed wararka ayaa waxa intaas ku dareen in madaxweynaha madaxweynaha ku dhamaaday ee Soomaaliya bari markuu khudbada jeediyo uu ka codsan doono gabi ahaanba inay gacanta u taagi doonaan baarlamaanka Soomaaliya oo ay kaga laaban doonaan waxaa la sheegayaa in xildhibaano tirayer oo haddaba qabanqaabinaya ay sheegayaan inay xukuumadda mooshin ka keenayaan waa sida wararku ay sheegayaan kuwaasoo gabi ahaanba ka soo horjeedaan waa sida wararku ay sheegayaan madaxweynaha madaxweynaha ku dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna la filayaa inuu gabi ahaanba baarlamaanka Soomaaliya uu ka codsado khudbadiisa oo socon doonta baa leeyahay muddo aan badnayn inuu ka codsado inay ka tanaasulaan baa leeyahay baarlamaanka Soomaaliya muddadii labada sano ay u kordhiyeen ee jahaynta doorashada Soomaaliya ay wasida ay horeba u sheegeen 12 bishan Abriil aynu ku guda jirno madaxweyne Qoorqoor ra'iisul Roble iyo madaxweynaha madaxweynaha ku dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bari waxa ayaa habeenkii xalay ahaa kulan dheer ku yeeshay xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxay isla soo qaadeen in gabi ahaanba ay madaxweyne Qoorqoor iyo ra'iisul Roble ka codsadeen in gabi ahaanba uu ku wareejiyo doorashada Soomaaliya sidii ay uu isagu ula wareegi lahaa doorashada Soomaaliya iyo ciidamada amniga ay u hoostagi lahaayeen ra'iisul Soomaaliya waxay sheegeen inay ka codsadeen inay madaxweynaha madaxweynaha ku dhamaaday uu gabi ahaanba ka tanaasulay in doorashada wax saameyn ku yeesho halkaas oo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble isagu uu sheegay inuu hogaamin doono doorashada madaxweynaha ayaa la sheegayaa inuu cagajiid badan kala kulmay isaga oo sheegay in uu tanaasul badan sameyn doono ee baarlamaanka Soomaaliya uu lagu simo inta bariya ilaa iyo saacadaha soo socda buu yiri madaxweynuhu in baarlamaanka Soomaaliya marka aan ka soo laabto in ay wax walba fududeyn doonaan buu yiri madaxtooyada Soomaaliya waa sida wararka qaarku ay sheegayaan xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa deeq raashin iyo geel kala wareegay Wariye Daahir Calasow 3 neef oo geel iyo waliba dhowr baabuur oo raashin ayaa Wariye Daahir Calasow leeyahay inuu ku wareejiyay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya Jarana Indhacade iyo waliba Suudi oo ka tirsan xisbiga wadajir ayaa kala guddoomay xaafadda Siigaala degmada Hodan ee magaalada Muqdisho in ay deeqdaasi kala wareegeen Wariye Daahir Calasow deeqdaasi isagoo oo sheegay in dadka Soomaaliyeed ee kale ay ku deedaan wararku waxa intaas ku darayaan in Mahad Maxamed Salaad oo hadda u xil saaran dhinaca maaliyadda ciidamada ka soo horjeeda muddo kororsiga ee mucaaradka in ay hadda maalinba maad ka dambeysay sii xoogeysanayaan iyada oo Mahad Maxamed Salaad uu mushaharka ciidamadaasi uu gacanta ku hayo iyo waliba akoonada loo sameeyay baa leeyahay oo hadda la sheegay in deeqa kala duwan ay soo gaarayaan madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu gabi ahaanba ka qaaday warshada Turkiga ee hubka soo saartay ugu casrisan Erdogan
oo xalfad lagu qabtay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga oo xariga lagaga jariyay warshadaasi hubka casriga soo saarta ee dalka Turkiga ayaa madaxweyne Erdogan waxa uu xariga ka jaray warshadaasi isaga oo sheegay in Turkigu haddaba uu gaaray isku filaansho dhan walba. Erdogan ayaa ugu baaqay shacabka dalka Turkiga in ay hadda u jeesteen dalka Turkiga horumarkii iyo nabadii. Waa sida uu sheegay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xalfad lagu qabatay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga lagu qabtay, halkaas oo madaxweyne Erdogan uu sheegay in shacabka dalka Turkigu ay hadda u dhamaystireen horumarkii iyo weliba hiigsiga dalka Turkiga. Waa sida uu sheegay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Turkiga ayaa barihii u dambeeyay waxaa loo soo baxayay cudud kala duwan iyo weliba dalka Turkiga hub casri ah soo saarayay, iyadoo dowladaha reer galbeedkuna ay ka muujiyeen baa la leeyahay cabsi xoogan hubka dalkaas Turkiga uu soo saaranayo. Guud ahaan warkii caalamka aad ka socoteen